السلام الله عليكم سوري أصحاب تقاليقة وحيدر dabcan waxaan rabaa halkan inaan idinku soo gudbiyo wax laho yacni forecasting aan sameeyey weekly forecasting aan sameeyey maxaa lahaa bilowgii bishin maxaa leeyahay sanadkan hadeerna sanadku waxaa fuu maraya sad ogtihiin 2020 dabcan waxaan rabaa lacagaha qaar jihadaan ka sugayey siday ku tageen so dabcan because lacag waliba dee overall ay leedahay moogta marka lacag waliba overallkeeda qaabkan forecasting gareeyey bilowgii bishan bilowg maxaa leeyahay 2020 iyadana la socod wanaagsan dabcan dhowr lacagood baan soo qaadanayaa inkastoo lacago badankoodu ay targetkii tageen badankoodu targetkii aan u tilmaamay tageen oo waxaa la joogaa half year hadda la joogaa dabcan haddii aan mataqaanaa ma rabo inaan chartga dhex galo laakiin waxaan rabaa inaan yacni sawirkii xilligaan ka qaaday iyo sababtaan uga qaaday sababtaan jihada ugu diray waxaas inaan idiin sheego dabcan la socod wanaagsan insha allah dabcan lacagtani waa euro JBY dabcan xaggan oo sad ujeedaan waxaan ka qaaday 7 bishii January 2021 dabcan screenshotkan ka qaaday maxaan ka sugayey haddii aan structure ahaan soo laba taabasho samaysay halkan laba taabasho double block oo kaga wareegtay structure badan bay samaysay waxay ka sugaynaa ilaa in tayna 9 conversionayso in future ilaa intay maxaafka dambe ee sanadka ilaa inay bursanayso wax laho ilaa halkan dabcan caadi ahaanta videoka sidoo kale structure ahaan qofkii isticmaala structureska dabcan wuu dareemayaa pattern dhisana meeshana ka dhacay anad kale dhisin baa ka dhacay waxaa la sugayaa in structure weelji aan eegno waxay samaysay 6 bilood ee lasoo dhaafay dabcan sad ujeedo watan euro JBY qaabkii ay u saarnayd bay u saaran tahay waxay dhaqaaqday lacagtani all the way dhaqaaqan side-ka bay dhaqaaqday waana ka faa'iidaysanay dabcan xagana joogtay dhaqaaqaasay dhaqaaqday hadii ay tagtay haddii halkan agtid wax laho ma aysan gaarin laakiin dhaqaaq aad u qurux badan bay muujisay noo sheegay jawaabta lacagta soo dhaceen forecastingkeeni dhulka ma soo gelin dabcan because structure-ka ay sheegaya in lacagtan ay jeclaado dabcan taasa caadi ahaanta haddii aad isticmaasho structure-ka waad dareemaysaa qaab dhismeedka iyo qaabka u soo dhiso okay lacagtan waa IADC iyadana same isku maalin la qaaday 7 bishii January 2021 dabcan 6 bilood ka hor iyadana maxaan ka sugayay structure-kan laba taabasho samaysay hadda waliba durka sidoo saddex taabasho waadixa structure with structure waxaa laga sugayaa inay trulka tagto laakiin maxaa dhacay inay meelahan targetku meelahan noqon karaya because meeshan start correction bay gashay sidoo kale halkan structure-kan ku jira caadi ahaanta okay maxay samaysay aan dib u laabto waxaan watan lacagtii aan isbuucii ka faa'iidaysanay bay ahayd maxay dhaqaaqday ilaa intaan ay dhaqaaqday lacagtan iyadana meeshan aan ka sugaynay ilaa intaa wax ku dhow 500 bay dhaqaaqday dabcan iyadana watan dhaqaaqii ay dhaqaaqday waadix meelahan ay ka dhaqaaqday dabcan filayay idna all the way lacagtaasi jihadii guud bay sii aaday iyadana qaabkaas wey aan gudbo lacagta xigta sidoo kale lacagtan waa USD iyadana lacagaan forecasting ku sameynay isku qiimaan ka qaaday lacag oo dhan xitaa isku saacadii aan badaniyaa dabcan iyadana waa taas structure-kaasi ku jirtay xagee ka sugeynay future 6 bilood inay gaarto half year-ka ilaa inay halkan gaarto dabcan qaabkii rabtan la arko kadibna in future xagga laga soo lacagtan okay aan eegno maxay samaysay dabcan waatana meeshii dhaqaaqa ka samaysay taasay dhaqaaqday targetkiina way tagtay lacagtan iyadana USD ka sala jeedaan hadi had ooni fiibsay dhaqaaqday wax ku dhow adiga 1040 bay dhaqaaqday iyadana dhismeedkaasi dhaqaaqday iyadana in qaab dhismeedku ama structure-ku saxay wax ku dareemaysaa way in ay qaabkii aad u forecasting garaysay ay aad lacagtani oo wax muhiim ah dabcan iyadana lacagaad qurux badan way 6 bilood waxay samaysayna waa ujeedaan dabcan haddaan u gudbo lacagta xigtiyadana lacagta waa NZDC iyadana waa lacagta aan isbuuc dhow intriga ka hadlay 6 bilood ka hor bishii January qaabkan forecasting gareeyay structure-ka ku jirto yacni structure-kaas ku sheegay lacagta jihada ay tahay dabcan ay tahay jihada xagga laga sugayay inay gaarto ilaa targetkaas ama inay meelahan ilaa meelahan gaarto because
ilaa waxaa ku jira wax loo train meel uu kala laaban karo support level ku jira. Okay, aan eegno lacagtan waxay samaysay 6 bilood. طبعا وقتنا lacagtii hagee ka forecasting karaynay hadii ugu laabatid halkan طبعا meeshan aan ka forecasting karaynay way dhaqaaqday structure-kii wax soo saaray raise dambe positive flag kadib waxaan la sugaynay sii socdo ay target-ka sii gaartay iyadana qaabkaasi samaysay طبعا waa qaabkii aan ugu talagalnay haddii dib loo yar trailing-ka maysan gaarin markaan forecasting karaynay inay all the way up trailing-ka jabsay hagee tagtay level-kan ay tagtay kadibna trace dambe soo samaysay طبعا iyadana way dhaqaaqday oo jihadan u dirnay jihada afka biyaad. Okay, lacagtani waa NZD-JPY iyadana isku time aan ka qaaday screenshot-kan forecasting-kayga waxaan ka sugayaa structure-kan descending-ka inay all the way dhamaysato oo nitro ka tagto waayo waxay jabsay hadlaho structure-ka inaad trace dambe kadib all the way ay nitro ka tagto طبعا muhiimadoodu waxay ahayd in ka faa'iidaysto lacagtan inay tahay lacag overall kuna socota jihadaas waayo caadi ahaan structure ima sheegayo lacagtan inay soo laabanayso meelahan imanayso waayo structure ahaan baa lacagtan yacni aan mataqaanaa rabaa inaan entry uga qaato so waxaan ka sugaya lacagtan all the way up marka 6 bilood dambe waxay samaysay baan eegayaa طبعا waan watan bilowgii bisha meeshaan ka forecasting karin xaggan aan u badinaya markii jabisay all the way lacagtii way dhaqaaqday ilaa wax ku dhow 900 oo pip ay dhaqaaqday lacagtani iyadana waa qaabkaas ay wax u dhahaan طبعا lacagaad qurux badan bay ahayd طبعا structure ahaan ii sheegaysa in lacagtan ay gaarayso halkaas iyadana waa kaas 6 bilood wixii dhacay. Okay, lacagta ku xigtay lacagtani waa GBPUSD iyadana isku time aan ka qaaday maxaa la qabtay bishii January 2021 oo bilowda sanadka haddana sanadku yani half way maraya. Okay, maxaan ka sugaynay in all the way ay aado hagee tagtaa trailing-kaas tagto ama nitro ka buuxto marka maxaa dhacay 6 bilood lacagahan maxaa ku dhacay طبعا waa inaad idin ogtahay forecasting-keenu waa descending-kan baa ii sheegaya double course qaab correction ugu jibay 3 taabasho la sameeyay all the way iyadana aan eego طبعا waxay samaysay iyadana watana dhaqaaq ay samaysay ilaa all the way dhaqaaq aad iyo aad badan طبعا ayna gaartay wax dhaho target-kii ay gaartay descending-kan iyadana wada ujeedaan طبعا forecasting-keeni aan sameynay bishii January ilaa wax ku dhow 900 oo pip inay dhaqaaqday iyadana anigu gudbo lacagta xigtay iyadana طبعا waxaad u malaysaa lacagaho dhan inay yihiin lacago sema oo weliba طبعا jihadii aan u tilmaamnay aaday 6 bilood soo dhaafay طبعا lacagtani waxay noqonaysaa lacagta ugu dambeysa waa KJPY طبعا KJPY caadi ahaanta waxay ujeedaa structure in double blue hoose la yimi trailing maxaa la sugayaa inay all the way aado flag baad ujeedaa halkan طبعا in all the way la aado xagee nitro ka la tago iyadana aan eegno 6 bilood la soo dhaafay forecasting-kii 6 bilood waa kan laakiin waxay samaysay qaab dhismeedkii ay samaysay aan eegno iyadana inkastoo lacagtan aan overlap ka sugayna aan down iyo waxa aan ka sugay laakiin aan eegno KJPY pattern iyadana qaabkii aan forecasting karaynay ay samaysay طبعا ilaa ay target-kii gaartay wax ku dhow adiga pip inay dhaqaaqday طبعا oo ay gaartay 6 bilood target-kii descending-ka okay طبعا lacaga badan way jiraan يعني lacagahan waxay yihiin lacagaha yani naga filan lacagaha kale because kulli haddaan soo wada badhigo kulli way wada gaareen target-kii qaabkaan u qorsheynayay bilowga sanadkan طبعا wada gaareen laakiin waxaan rabaa intaan kusoo koobo طبعا إن شاء الله waxaan rajeynayaa إن شاء الله طبعا